xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in guriga hooyooyinka qaranka ee isxilqaan lagu dhisi doono iyadoona ay ka qayb qaadanayaan nabamba shaqaalaha rayidka iyadoo ay jiraan goobo kala duwan oo barnaamijka isxilqaan intii lagu guda jiray lagu dhisay oo kamid yahay teatarka qaranka iyo sidoo kale madbacadda dawladda ayaa sidoo kale waxay ballan qaaday in guriga hooyooyinka dib loogu dhisi doono isxilqaan maxamed cabdiqaadir haajir nuur ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wasiir ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta xildhibaano ururka haweenka qaranka agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo in badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta murtida ee madaalada ee teatarka qaranka kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii shaqaalaha rayidka ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha hooyooyinka oo la qorsheynayo in dib lagu soo celiyo quruxdii uu lahaa bartimaadkii agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha Marin Aadan iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batulush Axmed Gaballe ayaa ku baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha guriga hooyooyinka maadaama uu saldhig muhiim u yahay haweenka gabdho waxaa la rabaa guriga haweenka qaranka Soomaaliyeed inaan dhisano guriga haweenka qaranka Soomaaliyeed waa 4 dabaq waa 99 qol waa 33 musqulood waa 7 jiko waa 6 waxa iska leh gabdhaha Soomaaliyeed gudoomiye waa maqlaysaa gudoomiye ay noo tahay gabdhaha Soomaaliyeed tan yar ee dhalatay iyo midda boqolka jirta ee geeri sugayso gurigaas uu ka dhaxeeyaa dhaxalkiisu waa wada leenahay inaan dhisnaan rabaa kulankan ana madaxda ka codsaday inaan gabdhaha isku aragno waxaana annaga u horkicin ma dhisno ragna nooma qabto waana ogtiin waa in gacan lagu siiyo hawsha maaragtay guriga haweenka Soomaaliyeed sidaas oo kale qaybaha kale ee bulshada ama wasaaradaha kale ama maxaan ku radaa ganacsatada ama nooc kasta oo bulshada Soomaalida ay tahay guriga hooyada Soomaaliyeed maanta waa inaan loo kala harin oo hawshiisa loo wada istaago oo jaabka gacanta loo geliyo oo waxa loo baahan yahay daqiiqad lagu keeno waayo waa guriga hooyada Soomaaliyeed siyaha wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Abukaata Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in dawladda gacan bir ay ku qaban doonto ragga tacadiyada u geysta haweenka ayaamahan soo badanaya la sheegaya tacadiyaadka loo geysanayo gabdhaheen iyo dumarkeen wasaaradda cadaaladda iyo bahda cadaaladda waxay ku qaban doonaan dadka dhibaatadaas geysto gacan bir ah waxaana la marin doonaa sharciga ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu ballan qaaday inuu magacaabayo khabiir ku takhasusay sharciga oo loo xil saari doono dadka tacadiyaadka geysta inuu soo qabto kiisaskana baaritaan ku sameeyo waxaan sugaynaa insha Allah magacaawadaas waxaana la shaqayn doonaa wasaaradda cadaalad ahaan in tacadiyaadkaas laga hortago insha Allah siyaha wasiirka shaqada arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in madaxweynaha uu ka codsanayo inuu dhagax dhigo dhismaha hooyooyinka maadaama guriga hooyooyinka uu yahay guri aad muhiim u ah oo hooyooyinka dhan oo Soomaaliya meel walba dhagax dhigiisa waxaan ka codsanaynaa inuu dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ilaahay marka madaxweynaha ayaa dhigi doona madaxweynaha la sugeynaa laakiin guddi baa la sameeyay saddex tahay ayna madaxweynaha soo jecel yahay haweenka Soomaaliyeed marka isaga la sugeynaa isaga noo dhax dhigaaya laakiin hadda waxaan galeynaa guddiyada la sameeynaayo oo farsamo sidii gurigan muddo 3 bilood 2 bilood gudahooda aan u dhameystireen diyaar muunahay inaan guriga hooyooyinka diyaar muunahay inaan dalka inta bustan diyaar muunahay haddii ilaahay waxaan idinku baraarujinayaa haddii ilaahay dhinaca kale waxa uu sheegay in dhawaan uu amar ku soo rogi doono dhammaan shaqaalaha rayidka si loogu ururiyo qondo lacageed oo lagu dhisayo dhismaha hooyooyinka anigu mar dhow amar ayaan soo saari doonaa oo aan ku soo rogi doono dhammaan shaqaalaha hadday noqon lahaayeen gabdho iyo hadday noqon lahaayeen wiilalba lacag loogu talagalay loona qoondeyn doono in dib loogu dhiso guriga hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay waxa weeye waa hadafkaas oo madaxweynaha oo in dhammaan 4 goobood oo quruxda badan isku ekaadaan oo ay noqoto bilcidi dalkina soo cish Haajir Abdulqaadir RTN TV Muqdisho.